Soomaaliyeed oo dhan dadkeena meel joogaanba kacaankii labaad ee dalkeena ka dhacay waxa madax u ahaa Maxamed Cabdulla Xasan سيد محمد عبد الله حسن وحو أها نينكي ugu horeeyay ee gaalada la dagaalamay naftiis ugu rooha oo inuu Soomaali xornimo u socosho ayuu doonay ujeedadiisu waxay ahayd gobonimo doon meeriska dhulku wuxuu sameeyaa laba wareeg mid uu ku sameeyo orbidka yaa kala arday kala intayna doonayna marka adiga istaag I'm a